ku walaalownay Soomaalinimadii ayaan ku walaalownay meelaan ku kala tegaynaan qabriga ahayn ma jirto horta Ilaahay dhexdeena wanaag iyo kalgacayl Ilaahay dhexdeena hadigo Soomaaliya haddaanu nahay Ilaahow adaan ku baryayna walaalnimo iyo wanaag dhexdayada dhig haddaan Soomaali nahay taan ini sheegi rabo waxaas Isiolo i keenay sanado badan ayaan Isiolo imaan jiray markaan imaado suuqan wareega waxaan la hadlaw inamada maamooyinka waxaan arkay dib weyn ayaa Isiolo ka taagan waad la socoteen historygayga anigu qof martiya oo shalay Isiolo soo galay meehi xuduntaydu Isiolo North bay ku aasan tahay Isiolo baan ku dhashay markaan arkay dibka taagan anigu dad baan u soo shaqeeyay on Muslim ahayn maamooyinkii aan gacanta qabtay oo Ilaahay igaga sareeyo maanta mid walba dukaan bay dhex fadhidaa markaad eegtid annaga Soomaali haddaanu nahay horta ile tunasema we have the numbers to elect maanta holkan inta ku jirta chairladies-ka tuko na chairladies 11 katika jamii ya Somali every chairlady leo amekuja na 20 members tungekuwa na capacity ile hall kubwa kila chairlady angekuja na wamama 70 tungejaa hapa 700 lakini leo hii tuko zaidi ya wamama 300 mimi nawashukuru sana wamama na kwanza kuna mama chairlady moja ya jamii ya Gare amekuja ni mama amevunjika ako na clutches but ile mapenzi na mapendo ako naye ilimbidi afike hapa chairladies mimi ninawapenda sana ile kazi mnafanya Allah atawabariki na kwa jumla wa mama ile wakati tumekuja tumepanga mpango yetu asubuhi na kawaida kazi ya asubuhi mama ako na shughuli yake ya nyumbani kupikia watoto kutayarisha leo wamama wameamua kazi wameweka parking ndio wafike leo hapa tusemezane munibariki nikue flag bearer kugwania kiti ya mjumbe nasema asanteni sana nikirudi kidogo kwa lugha ya Kisomali horta anigu waxaan ahay hooyo waxaan ahay gabadh lagu soo koriyay diinta waalidiintayda hooyaday reer culimo ay ka dhalatay aabahay reer culumay ka dhasheen waxaan sida u leeyahay anigu marnaba been inima sheegayo anigu marnaba inima dulmayo dabarkaad isaarteen aniguna waxaan inigu ballan qaaday uu Ilaahay markhaati ka yahay Isiolo North maamooyinka ku nool caruurtooda odayadooda nolol isbedela oo fiican oo xaraga leh inaan keeno moogtahay qofka binaadanka waxaad ku qiimaynaysaa markuu qofku kursi raadsanayo waa qiimaynaysaa qofka binaadanka Soomaali haddaanu nahayna waxaan iska leenahay qudsi yaryar xitaa hablaha aad baa loo qursada sababta markaad kacdid astraadi kursi raadso waxay dhahayaan tan ordaysa yay tahay tan ordaysa maxay doonaysaa oo kii qabay meen gabadha naagtan mana laga qabto soo ma dhacdo anigu waan ini baryaya markuu qof dumara soo istaago ee kursi raadsanayso waa naag isku hubta xoog iyo you know the strength of a woman oo ini shaqaynaysa inaan ahay maanta markaad eegtid caruurta iyada iskuulada dhigta caruurtii waalidkii
business yar baad leedahay ilmihiiba basari u raadinaysa basari oo lamaana 3,000 baa lagu siinayaa caruurtii markay form 3 gaadhaan fees baa u waayaysa adiyar haday haysatay iibisay gurigiibu ku fadhisanaya ilmuhu waxaan doonayaa ile mnasema nataka kuwafungua macho na kuwachanua na msikize vizuri basari mkisikia mambo ya basari katika katiba ya Kenya si pesa unaomba mtu ni right ya kila mtoto Mkenya au anapewa basari lakini wakati shida inakuja na taabu wakati kuna uongozi mbaya na uongozi mbaya nyinyi mwenyewe ndio mnachagua ile uongozi mbaya juu mara nyingi wakati ya campaign watu wanakuja na pesa inamagwa hakuna wakati mtu atajitolea aseme sitachukua pesa ya campaign inabidi kwa sababu hawa wanasiasa wamefinya wananchi sana unafinywa mpaka sasa ikifika wakati ya siasa unaongoja ukule hiyo pesa lakini mimi ile uongozi nitawaletea wamama na vijana ile uongozi nitalete unajua kawaida mama ndio mlezi kwa nyumba mama saizi akipika kilo ya ugali na ako na watoto 10 ndani ya nyumba atahakikisha kila mtoto amekula portion kidogo na ameshiba mimi nitawaletea uongozi ya mama nishike vijana mkono niwashike wa mama mkono nishike wazee mkono na kawaida mama akiinuka ndani ya nyumba de bi'asharadi iska haysato maamadii ayadi caruurti school ki tagayaan gurigaas nabad iyo naxariis iyo wanaag ayaa ka bilaabaya markaad eegtid inamadeena inamo badan ayaa halaabay siyolo waxay u halaabeen ay dawooyinka u geliyaan hooyo kasta waxay jeceshay ilmaheedo meel fiican maray hooyo doonaysa ilmaheeda inuu ka halaabo dunida ma jirto mise waalid laakiin maxaa ku kalifaya inamada waxa jira wax stress la dhaw schoolki baad soo dhamaysay form 4 shaqo ma haysatid waalidki lacagtii schoolki ka bixiye adigi xaafadii dhibaato waxay aad helaysa ma jirto stress ku markuu maskaxdaada ka qofka bini'aadanka stress ku maskaxdiisa markuu ka batona laba badaca ama qofkaas waalan waxaad ka qofkaas ka waalan halkaas ka ordaya kuwa qaarna waxay isleeyihiin drugska iyo balaayada iyo dawooyinkan dhex gala oo aan stresskan iska dhimo dawo iyo drugs wax stress dhameynayso ma jirto noloshu markay ka halawdo inyar waxa weeyaan markan lagu gacan qabanin inamada form 4 dhameeyay in cilunta si wataan ila colleges university inay gaaraan weeyaan sidii si leeg hablaha laakiin markaad weydi wax gacanta ku qabta dhibaato weyn ayaa gaaraysa familiyadii markaan waanan inii sheegay markaan soo galay wallahi qalbigayga ilmadan isku celiyo waxaan maamooyinka xidhi oo gabadhu maxay la ooysa kursiga raadinaysa waan isku celinayay you get emotional anigu aad baan u socday waan eegay Soomaalida maxad u qaban Soomaaliya maanta waan in la hadlaya maanta guradina hakala daadinina group odayaalan beri dhawayto la fariistay oday wuxuu yiri kursiga waan ku siinayna waan kugu duceynayna maanta inanteeni oo noo timid maran ku celinayno ma jirto marka odayadu sida dhahan anigu waxaan ogay maamooyinka kasi kalgacayl badan waadi caleema saarteen keegi baadi hagaajiseen aad baadi soo dhaweyseen taasna ma ogtahay qofka binaadanka marka lagu soo dhaweeyo aad faraxdid waan inii sheegay markaan soo galiyay oo intii baan isku celinayay because kalgacaylka iyo wanaagi aan arkay ayaa noqday a bit emotional qofka binaadanka waxa dhaysa anigu kuradan oo dhan anaa leh laakiin binaadanka waxa ku jira wadnaha ma garanaysid Soomaha anigu reception kan hele waxaan hubaa maamooyinka halkan fadhiya 100% kuradooda inaan helayo waxa la yiri maamooyinkuna meeshay maraan
kurada marka la soo odaygi ba soo kicinaysa ina mari maanta inanteen yaan u soo ridna hablahaagi iyo inamadaadi kurada hayste guriga marka ka soo baxaysin maanta aan baxno aan inanta soo dhisno aan soo taageerno soo saas maaha marka aad bad mahadsantiin anigu waxaan idhi waadi xambaarteen anigu waan ini xambaari oo korbaan ini qaadi ilaahay markhaati ka yahay إن شاء الله فاتحة سومرة إلهي إنو نقادسيو أنو عافيماد له أو سيداسي سجود دوبان أو سيداسي سوتشعل إنو إلهي 2027 نقادسيو وحنا ده كسيحو كسوتوس ما أنت أنا سلالة وحنا زمزمي كسيحو كسوتوس كورادي ماموين كعنت هذا كتيران أني قلنا waxaan inagu leeyahay ku seexda oo ku soo toosa Zamzam Ismaaciil kursiga markay ku fadhiisato taar maamadii soo dirta waxay doonayso in gurigeeda loogu keeno caruur oo ay sama jirto horta qofka binaadanka ilaahay baa ummadiisa dirjiya soo sax maaha laakiin markaan iskaashano aan is caawino empowerment programs kay soo galaan markaan leeyahay Soomaali waxa dad badan baa nagu dhex jira kurooyin baan uga baahanahay qolo kasta ayaguba programs waxa kolley way gaadhayaan markaas aad iyo aad baad mahadsantiin nikiripotia Kamachu TV itaripota 001 wa Chumbi Kamachu.